dad badan oo Soomaali ah oo qaarkood ka soo jeedaan gudaha Somaliland lagu leeyahay wadanka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Oromada ee Haawaday haddaba iyadoo dhibaatadani saameysay qoysas badan oo Oromo oo ku dhaqan magaalada Hargeysa isla markaasina ay sheegeen inay soo qabsan kari waayeen hawl maalimoodkoodii ama shaqooyinka ay ka hanjireen gudaha magaalada Hargeysa مسؤولينta ugu sareysa ee Jaaliyadda Oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo la hadlayay VOA ayaa Somaliland iyo weliba bulshadeeda ka codsaday in nabadgelyadooda ay ilaaliyaan maadaama ay magangeliyo ku joogaan Somaliland qaxoontina ay ku yihiin Farxaan Xuseen Aadan oo kamid ah mas'uuliyiinta Jaaliyadda ayaa sidaas sheegay xaafad walba gudi iyo gudoomiye leedahay gudida iyo gudoomiyaha leedahay iyo salaadiinta iyo aqliinta xaafad walba leedahay maamulku sidii Somaliland ku dhaqanto wal garana wax garad iyo qalbi ku dhaqanta nin walba qaashoodii iyo wax garadkooda iyo culimaadiinku inay soo baxaan xaafad walba gudoomiyaha gudida joogta inay ka war hayaan amniga la ilaaliyo oo waxaanu ka codsanaynaa nin walba maatidiisa iyo ciyaalka in laga qabto xaafadaha waayo cidii wax yeeshay maanta xaqana sidii wax u dhaaway cid walba ogtahay cidii halkan joogtayna waxba mayn galabsan waa dad magangeliya waa dad calanka Somaliland maanta magangeliyo ah waa dad ay dawladdu ogtahay واسان كوشة جاي سلام سكري رفوتي بقى بس كنت ماشوا شوجا وقحوتي قحوتي ده مجنجليو ماشوا وشوجا قف مجنجليو وشوجا ماشوا علن كاجي هر كاجي كوستيرنا إن ده ولا لجوحد جد بآدي آد من لجوا نكسين هاي إن أمني جسيدة أي Somaliland ما أنت أقول واغلي إن يقول ما يسترتوي ولا لسه يان أباهن هاي Somaliland دلك يدي بدي دميل والباقي شوك تبع جزاكم الله خير dagaalkan ayaan isaguna qayb kamid ah dadka Itoobiyaanka ah ee ku dhaqan magaalada Hargeysa wax saameyn aan ku yeelan shaqooyinkoodii Farxaan Maxamed waa wiil yar oo ku dhashay Hargeysa waxaanu ka shaqeeyaa maritaanka baabuurta waxaanu ii sheegay inaanay wax saameyn ah aan dhibaatadani ku yeelanin sidee ku saameysay dhibaatadan ka dhacday Haawaday wax saameyn shaqadaada iyo waxa gamiye ku yeelatay waxa dhacday oo dhan anaga waxba nigama soo gaarin halkan waa nimco halka mooyaan waxba waxna soo gaarin ma jiraan ya wax dhiba ma aan aragno intaan joogno Taydi waa ganacsade ka soo jeeda wadanka Itoobiya waxa uu ka dhax ganacsadaa magaalada Hargeysa waxaanu sheegay inaanu isaguna saameynin dagaalkani waxa uu ku leeyahay magaalada Hargeysa mid kamid ah meheradaha ugu waaweyn ee dadku aadka ugu xidhan yihiin halkaasi oo lagu cuno canjeerada Itoobiyaanka alxamdulillah waxa ma dhacin أنا مهردو فريا ولا محدن الحمد لله وعن شقنا لبس ساعته أظن ما شقنا يا مهردو فريا وأنا بدبك الحمد لله. هرجيسة إمس السنة ضد بتشوف تيجي الصوماليلاند. لا يا توماس أنا بنشقنا لا توماس أنا ميل هاد كوي توماس ميل السنة لكن سكو هرجيسة والناس سكو سوماليلاند وانا يمكن الحمد لله. واحدة بمية كيلو كل أنت هتشوف تي مقالة هرجيسة. no الحمد لله متشر. yes. حد صوت شيء لهذا dadka dagaalamaya Haawaday ku dagaalamaya. أنا نبض بنك بايو وشقديد واساس من نقطة مقطع وهي رباطة بيا لكن والحمد لله أنت الساس ولا هذا معها من جست والرئيس لك شقيا مقالة هرجيسة وحانو إسندن كيس الشيء يعني أنو سامين دجال كني ما رباطة مجرت والحمد لله Afhayeen madaxtooyada Somaliland oo isaguna wareysi gaar ah siiyay VOA ayaa shacabka Somaliland ugu baaqay inay ilaaliyaan dadka magangelyada ku jooga gudaha Somaliland ee ka soo jeeda qoomiyadda Oromada xukuumadahaana talaabo adag baan ku qaadi doonaa cid kasta oo isku dayda in dadka masaakiinta Oromada ay nool ee dalka Somaliland ama magangelyada ku jooga ama ka shaqeysta ee dad walaalaheena in la iska bartilmaameedsado oo loo bartilmaameedsado waxa isku laayay Soomaalida waanu ka xunay xukuumadahaan sidanu sheegnay in nabadgeliyo lagu soo dabaalana waa laga maarmaan dalka Somaliland gudihiisa markay noqoto in dad masaakiin oo aan waxba geysanin guryahooda lagu doonto ama ay dibadda u bixi waayaan ama ay raashin cuni waayaan ama ay soo adeegan kari waayaan ama ay shaqooyinkooda aadi waayaan waa mamnuuc xukuumadda Somaliland talaabo adag bay ka qaadi doontaa cid kasta oo isku dayda in dadka Oromada ay masaakiinta dalkeena ku nool ay rabshada ama dhibaato u geystaan dabcan waa mamnuuc wayna reeban tahay in dad masaakiina oo dalkeena magangeliyo u joogo la iska bartilmaameedsado mas'uuliyadana xukuumadda leh nabadgelyodoodana iyada damaanad qaadaysa Sagal Mustafe Nuur VOA Hargeysa